Fagaaro ka hadalka mahaaro maanta ka mid ah mahaarooyinka lagama maarmaanka ah. Haddana saa ay tahay, dadyowga adduunka waxyaabaha ay ka cabsadaan marka laga hadlayo ka soo gasha nambarka koowaad. Ma rumaysan kartaa, xitaa waxay booska kala baxday oo ay ka horreysaa geerida ama dhimashada. Dadka caalamka ku nool badankooda waxay ka cabsadaan in ay dadka hor istaagaan ama ka hor hadlaan in ka badan inta ay ka cabsadaan dhimashada. Muuqaalka maanta waxaan ku lafa guri doonaa muhiimadda ay leedahay xirfadda fagaaro ka hadlidda iyo faa'iidadeeda. Waxaan isweydiin doonaa su'aasha ah, dadka maxay uga cabsadaan in ay dadka ka hor hadlaan? Sidee qofka cabsida uga adkaan karaa? Ugu dambeyntii, waxaan la wadaagi doonaa talooyin ay ku taliyaan dadka dhankan aqoonta mugga weyn u leh, sida aad cabsida uga adkaan kartid aadna u kasban kartid xirfadda fagaaro ka hadlidda. Sida aad ku noqon kartid hadal jeediye fasaaxadiisa iyo hadal jeedintiisa dadka soo jiidato. Aan horay u galno muuqaalka maanta. Intaanan muuqaalka horay u sii gelin, hubi in kanaalka subscribe aad saartay gambaleelkana kuu furan yahay. Taa waxay kaa saacidayn doontaa in uu ku soo gaaro muuqaal kasta oo cusub oon halkan soo gelin. Hana ilaawin in aad muuqaalka like saartid haddaad ka heshay ama aad dislike saartid haddaadan ka helin. Sidoo kale, fikradaada igula wadaag hoos commentiga. Waxba yaanan waqtiga in ka lumin ee aan horay u galno mowduuca. In aad leedahay xirfadda hadal jeedinta waa shay muhiim ah dunidan aan maanta joogno. Haddii aad leedahay ganacsi shakhsi ama xitaa ganacsi kale ee aad mas'uul ka tahay, si ganacsigaasi aad u suuq geysid waxaad u baahan tahay in aad ku fiican tahay mahaarada fagaaro ka hadlidda. Dadkana aad u gudbin kartid macluumaadka aad rabtid inaad gaarsiisid. Suuqgeynta ganacsigaaga waxa uu dubdhig u noqon doona sida marba aad u awoodid in dadka kale aad ugu sharaxdid macluumaadka aad ka bixinaysid ganacsigaaga gaarka ah ama kan aad horjoogaha ka tahay. Ganacsiga keliya maaha ee ganacsiga tusaale ayaan u soo qaatay. Nolosha caalamka cusub boqolkiiba in badan waxay ku xiran tahay sida mashruucyadaada ay u guuleystaan. Ilaa xad sida aad u tahay qof u cabiri kara fikradiisa oo fagaaro ka hadlidda aad ugu fiican tahay. Ood awooddo dhowr qof ama xitaa mararka qaar boqolaal iyo kumanaan qof hortooda inaad soo istaagtid, kadibna aad bixisid fikradda aad ka bixinaysid ganacsigaaga ama mashruucaada cusub si ay suuqgeyn kugu noqoto. Laakiin ayadoo mahaaradda waxa uu muhiimad ay leedahay, haddana waxay nambarka koowaad ka tahay waxyaabaha badanka bini'aadamku ka cabsada. Xitaa waxay kaalinta cabsida kaga horreysaa xayawaanada bini'aadamka ka cabsadaan iyo geerida. Su'aasha isweydiinta mudan waxaa weeye, maxaa sababa cabsida? Cabsida boqolkiiba in badan waxaa sababa kalsooni darro oo uusan qofka ku qabin kalsooni nafsadiisa ama badanka waxa uu soo jeedinaya oo uusan si wanaagsan u sugin. Saa daraaddeed, qodobka koowaad ee muhiimadda ah waa inaad sugtaa waxa aad ka hadlaysid ama aad dadka aad u sheegaysid intaadan la hortagin ka hor. Sidee ku ogaan kartaa in aad sugtay macluumadan aad rabtid in aad dadka kale u gudbidid? Waxaa ku ogaan kartaa in aad keligaa inta muraayadda hor tagtid aad u hadashid sidii adigoo dadka hor taagan oo wax u sheegaysid. Qaabka waa training ama tababar fiican oo ilaa xad ku siinaya kalsooni ah in aad waxa dadka la hortagaysid ama aad doonaysid inaad la hortagta ay yihiin wax sugan ood adiga si fiican u garanaysid. In aad kalsoonida haysatidna waa muhiim. Inta aad istababaridda aad ku jirtid, waxaa ogaanaysaa meelaha kugu adag ee tahay inaad il gooni aad ku haysid. Sidoo kale, waxaa muhiim ah inaad iska sii tijaabisid qaabka tilmaamaha ama luqaddaada jirka. Luqaddaada jirka waa muhiim, waana waxa faallada koowaad ama commentiga ugu horreeya ka bixinaya shakhsiyaddaada iyo waxa aad la soo shir tagtay. Saa daraaddeed, ku dadaal in luqaddaada jirka ay hagaagsan tahay ayna kaa bixinaysa fariin positive ah
ama fariin wanaagsan. Iskoolkaada ama dugsigaada waa goobta ugu horreysa aad ku baranaysid ka hor hadlidda dadka iyo qaabka aad iskugu diyaarin lahayd waxa aad dadka la hor istaagi lahayd. Taladaydu waa in aadan ka fiigin kana meeraysan barnaamijyada kuu siinaya fursadda in aad dadka hor imaado ood wax u sheegto. Waan ogahay oo annaga oo dhan ma jeclin in aan dadka hor istaagno, laakiin haddana waa tababar wanaagsan oo saameyn togan ku yeelanaya noloshaada. Maalinta ama xitaa maalmaha ugu horreeya aad ayaad u cabsan doontaa. Waxaa kaa muuqan doona dhammaan calaamadaha cabsida. Laakiin markaa maalmo iyo bilooyin aad joogtaysid oo aad ku celcelisid, waad la qabsan doontaa. Waxayna kuu noqon doontaa arrin dabiici ah, ama xitaa ilaa xad aan lagaa dareemin in mashaakil cabsi ah ay maskaxdaada ku hawshan tahay. Diyaargarow buuxa in aad samaysid waa mid ka mid ah tallaabooyinka kaa caawinaya inaad isku kalsoonaatid. Sideen u diyaargarowaa weeye marka su'aasha meesha taallo. Baaritaan badan samee. Waa inaad si fiican u baartaa mowduuca aad ka hadli rabtid inta aadan hortagin dadka aad wax u sheegi rabtid. Xitaa maalmo ka hor waa inaad baaritaankaa samaysid. Waa inaad mowduuca aad dhan walba iska istaagtaa, aad u baartaa macluumaadka si qoto dheer. Samee inaad internetka ka baartid, inaad akhridid buugaag mowduucaas ku saabsan, aadna daawatid muuqaallo ku saabsan waa haddii aad helaysid muuqaallo ku saabsan mowduuca aad markaas ka hadlaysid. Haddaad samaysid, waxaad helaysaa kalsooni buuxda. Kalsoonidana waa udub-dhigga ugu muhiimsan marka laga hadlayo hadal jeedinta dadka hortooda. Suurayso maalin adoo ku jira booska raggan, adoo taagan booska Barack Obama oo la hadlaya dadweynaha caalamka ama kuwa Maraykanka, ama ku jira booska Jack Ma, asaasaha Alibaba, oo doonaysa in aad suuqgeyn u samaysid shirkadaada, ama aad ku jirtid booska Steve Jobs oo doonaysid in aad dadka ka gadid shirkadaada cusub ee Apple xilli suuqa ay ku jirto shirkad boqolkiiba in badan dadweynaha dunida ay isticmaalaan Nokia. Aadanna ahayn qof ku fiican fagaara ka hadlidda oo aadan karin in aad 5 qof xitaa aad ka hor hadashid. Marka oo kale inaad indhaha mirig ka siisid kaama bixinaysa ama aad dhuumatid. Intaan waxaan tusaale kugu soo qaadanayaa in aan meel dhow kaa fahansiiya muhiimadda xirfadda fagaara ka hadlidda. Intaan ayuu ku eg yahay muuqaalka maanta. Inta aan ku kulmi doono muuqaalkan kan xiga, waxaan inkaga tegayaa mac salaamo.